السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقرطوية دلك برناي waxay ku taalaa koonfur bari qaaradda Asia. waxay xal la wadaagtaa wadamada Indonesia iyo Malaysia. waxay saddexda wadam wada wadaagaan jasiirad la yiraahdo Brunei Island. boqorka dalka xukuma boqor Xasan Bulkayi wuxuu dhashay 15 July 1946 haatan da'diisa waxay maraysaa 73 jir. boqor Xasan Bulkayi wuxuu noqonayaa boqorkii 29aad ee soo mara boqortooyada dalka Brunei oo haatan jirsatay in ka badan 600 oo sano. boqor Xasan Bulkayi wuxuu salada wadanka ama boqortooyada la wareegay October 5 1967 kadib aabihiis boqor Bulkayi markuu xukunka boqornimada iska wareejiyay. boqor Xasan Bulkayi waxa uu guursaday 7 xaas wuxuu caruur leeyahay in ka badan 12 cunug. boqor Xasan Bulkayi only inuu yahay maaha kaliya boqortooyada dalka Brunei waxa kale uu yahay wasiirka wasaaraha wadanka, wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka maaliyadda iyo waliba taliyaha maxkamadda sare ee dalka iyo waliba taliyaha ciidanka xoogga dalka ee marka wadanka Brunei. boqor Xasan Bulkayi waxa uu balwadu leeyahay in uu samaysto gawaari aad u fara badan ama waxa loo yaqaan uu leeyahay garaash weyn oo adduunka dhan bacaan ka noqday oo ay ku jiraan in ka badan 2500 oo gawaarida loo yaqaan classic antique iyo modern oo gaari walba lagu qiyaasay in ka badan malaayiin dollar inay ku kacayso. wuxuu wadankiisa ka dhistay guryo uu asaga qaas u leeyahay in ka badan 1500 oo palace ama qasriyo waaweyn ah. gudahooda waxaa lagu xardhay ama lagu sharaxay dahab aad u fara badan, kuraasta, albaabada, musqulaha iyo waliba dashadaha inay ka kooban yihiin dahab pure ah oo 24 karat ah. boqor Xasan Bulkayi hantidiisa ama waxa loo yaqaan net worth-kiisa oo caalamka iyo bangiyada ugu jirta waxa lagu qiyaasay in ka badan 70 bilyan oo dollar. boqor Xasan Bulkayi adduunka wuxuu ku leeyahay investment fara badan ayuu gashtay dunida cadaladeeda sida hoteelo waaweyn iyo waliba maalgashi waaweyn stock market, New York stock markets iyo waliba shirkadaha waaweyn ee Mareykanka. ayada uu saas xididadiisa ugu beeray dhammaan wadamada reer galbeedka oo maalgashi ku sameeyay ayaa haddana wuxuu soo rogay wadankiisa ku soo rogay shariica islaamka leeyahay, laakiin asaga iyo qoyskiisa kuma dhaqmaan umada kaliya kala lagu dhaqaaya qofkii waxa gacanta laga goonaya miskiina laakiin familkiisa oo malaayiin and billions iyo dahab fara badan umada ka xadaysa gacanta laga goonayo. arintaas wuxuu kala kulmay dhammaan adduunka meel walba in looga mudaharaado, especially Beverly Hills, magaalada la yiraahdo Beverly Hills waa toorayaasha iyo atriishiyaasha iyo dadka laandeerayaasha Mareykanka degan yihiin oo ku taala gobolka California Mareykanka oo hotel weyn uu ku leeyahay. hotelkaasi ayaamahan dhan waxa ka socday mudaharaad oo la leeyahay wadankiisii wax ka soo xaday umada masaakiinta haday xabad canbaaxadana gacanta laga gooyo leeyahay. sida caadada ahba wadamada kaligii talisnimo fara badan hadeen muuqato miskiinka baa dhibaatooda. wadanka Brunei wadan qurux badan waaye, waa dhisay boqorka, waa hagaajiyay, laakiin shuruucda iyo ilaa uu roon yahay talooyinka wadanka lagu maamulayo cidna lama wadaago. wadanka Brunei wadamo miskiin ah oo daris leeyahay sida Indonesia oo faqurnimada aad ugu badanaysan kasto wada dhaqaaleeda ku soo kacayo. marka barnaamijyadan iyo barnaamijyo kale waa idin gudbinaynaa. haddii aad ka heshaan please like and subscribe Kabaro TV. aad baan u mahadsantihiin asxaabta. Thank you guys.